madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa munaasabada Ciidul Fitriga awgeed waxa uu cafis u fidiyay in ku dhow 20 maxbuus oo ku xiran mid kamid ah xabsiyada ku yaala magaalada Kismaayo. maxbuustan oo hore u galay maxbuustan ayaa waxa ay galeen falal maxbuustan ayaa hore waxa lagu soo eedeeyay inay galeen dambiyo fudud waxaana cafis u fidiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. goobta xabsiga ah ee maxbuustan laga sii deynay waxaan kula kulmay qaar kamid ah dhalinyaradii cafiska loo fidiyay ciida Fitriga awgeed waxayna ka mahadnaqeen cafiskan uu fidiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyagoo Jubbaland TV u sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta cafiskaasi la siiyo. bismillaah magacaygu waa Cabdiqaadir Mugaanga Dhuumay oo ku xirnaa xabsiga nabad sugidda in muddo ah waxaan madcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaheena taasoo cafis ballaaran noo fidiyay sababta Ciidul Fitriga waxaan aad ugu faraxsanahay laba farxadood oo isu ka kulmeen farxad ah in anigoo xirnaa oo la isii daayay iyo farxad ciid ah waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaheena waxaan kale u mahadcelinaynaa korneelkeena korneel Axmed Muuse iyo dhammaan saraakiisha kale ee hoggaanka Jubbaland ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan ciidamada nabad sugidda saraakiisha nabad sugidda kuwaasoo ku halgamay in aanan dhibaatana la gaarsiinin oo ku dadaalayay caafimaadkeena cunadeena iyo nabadgelyada aad aan u haysanay taas ay ku mahadsan yihiin. liiraa Cabduul Cismaan Cumar oo muddo cabaar ku xirnaay fi'ad oo maanta cafiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaa meesha ugu mahadcelinaynaa Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha boqolkiiba boqol maanta farxadeeda la soo koobi karin laba farxadood isku kay soo kordarsantay Ilaahay ku mahadsan waxaa meeshan ka salaamayna madaxweynaha iyo dhammaantiis ku xigeenkiisa iyo meeshan waxaa ugu mahadcelinaynaa nimankii nolosheena nalal qaybsaday kamid yahay korneel Axmed Muuse oo cabaar nala soo halgamay oo nolosheena wax badan oo ka qaatay iyo taliyaha Samiir oo kamid yahay waa u mahadcelinaynaa. korneel Axmed Muuse oo ah hoggaanka damba baarista ayaa waxa uu ka waramay raggan cafiska loo fidiyay iyo kol hore dambiyadii ay soo galeen ee lagu eedeeyay. maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bishii 6 2019 wuxuu madaxweynaha cafis u fidiyay fadliga ciida bisha Ramadaan eedeysanayaal ku xirnaa xabsiga nabad sugidda Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Axmed Maxamuud Jaamac, Jubbaland TV, Kismaayo.